nin dhakhtar oo Soomaaliya jooga ayaa wuxuu tijaabiyay inuu zakada reerkooda faqriga kaga saaro. reerkoodii buu tagay dabeetana wuu la shiray odayadoodii buu isugu yeedhay wuxuu waxaan rabaa inaan reerkoo dhan zakadiisa ururino. reerka wixii faqiirana ii soo qora, wixii reerka ku jira faqiir iyo miskiin reer ka mid ah soo qora, zakada reerkoo dhanna aan ururino. odayadii waa ka aqbaleen. reerkii markii hore ma wada aqbalin, ilaa 400 oo qoys meelahaasa aqbalay dadku dhudhow. intii baa laga qaaday. odayadii walcaamiliina calayha buu ka dhigo thumunkoodu siiyey. 8 qaybood ee zakada loo bixin jiray qaybtoodu siiyey. dadkii siday u kala faqaraysanaayeen buu u kala horbixiyey. wuxuu ku talagalaa sanadkan ciduu zakada siiya sanadka dambe inay zaka bixin karto, inuu ka saaro faqriga, way dad xoolahoodu zaka goysa noqdaan. waqti yar markuu waday reerkoodoo dhan wuxuu noqday dad zaka wada bixiyaan zaka qaadanin. maa tajribo haddaan dee idinka warramo taariikhdii hore muslimka iyo waxaa odhan doontaan waa baahiyaa dadkaan caynkan aniga ka macaan. waa casrigan, waa hadda iyo Soomaaliya, waa hadda iyo Soomaaliya, waa gobolka Xergaabo. nin wadaadoo dhakhtari reerkooda zakada ka ururiyo faqriga ka saar ilaa xad ay gaadho in reerkoodu markuu faqiir iska dhex waayo reeraha kale ay zakada markaas siiyaan. yani waa system loogu talagalay inay bulshadu kaga baxdo maxay faqriga lagaga saaro. waa system loogu talagalay takaaful ijtimaaciya, social welfare ma jiro. laakiin waxaa jira qofkan in qani laga dhigo, in la baahi tiro oo baahi beero, inuu hadhow isagu noqon karo qof wax bixiya aanu noqonin maxay qof wax qaata aanu noqonin. aanu noqon waxa la siinaya wuxuu maanta cuni lahaa ama bishan cuni lahaaye wuxuu faqri kaga bixi lahaa in loo dhiibo.